qaar ka mid ah waxgarad aqoon-yahano ka soo jeeda degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo maanta Muqdisho ku shiray ayaa waxa ay ugu arinsadeen xaaladda guud ee gobolka Gedo. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayay ku eedeeyeen inuu ku xadgudbayo beesha Dhalxe Amaareere oo kamid ah beelaha deegaanka gobolka Gedo kadib markii uu xilka ka qaaday gudoomiyihii magaalada Baardheere Ismaaciil Sheekh Cabdi Qorax Koofi. boqolkiiba 95 ayay sheegeen in ay deegaan ku yihiin magaalada Baardheere cidnana aysan marti u noqon doonin. waxaan ka hadlayaa dhibaatada laga abuuray gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheere. dhibaatadaas ay abuurtay madaxda maamulka Jubbaland sida Axmed Madoobe iyo Maxamuud Siidaadan. dhibaatada ay abuureen ay ugu talagaleen dadka degan Baardheere inay isku laayaan wixii ka yimaado mas'uuliyaddeeda ayaga ayaa qaadi doona. waxaana leenahay maamulka Jubbaland muddo badan bay dhibaato gobolka ka wadeen haddii ka waantoodi waayaan dhibaatada ay gobolka ka wadaan midkeeda qaybtoodu taaban doonaa. Baardheere meesha la yidhaahaa oo degmada ah Soomaali baa ku kulantay dad baana lihi isu sheegay. waxaan la yaabaa semberi nimanka oo gudoomiyaha degmada wax kale isaga dhiga dhaxal isaga dhiga oo sheegta war dhaxal ma aha gudoomiyahan waa markaadu ku soo maray marka kalena nin kale uu soo maray marka saddexaadna ninka saddexaad uu soo maray. arintaas marka waxa weeye waa muuqataa kulankooda ayay ka soo saareen war saxaafadeed dhowr qodob ka kooban waxaana saxaafadu akhriyay Cabdiqani Maxamed Bayo oo kamid ah waxgaradka iyo aqoon-yahanada magaalada Baardheere. warmartiyeed ka soo baxay beesha Dhalxe Amaareer ee gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheere. beeshu waxay cadeynaysaa in wixii dhibaato ka dhaca degmada Baardheere ee gobolka Gedo mas'uuliyadda ay qaadi doonaan maamulka Jubbaland ee fadhiidka ah. beeshu waxay ugu baaqaysaa dawladda federaalka Soomaaliya inay la socoto colaadda laga hurinayo degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo ay hurinayaan shakhsiyaad ka mid ah maamulka Jubbaland. beeshu waxay cadeynaysaa in degmada Baardheere ee gobolka Gedo gudoomiye uu ka yahay Ismaaciil Sheekh Cabdi Qorax Koofi uuna ka ahaan doono. sidoo kale beeshu waxa ay cadeynaysaa in degmada Baardheere ee gobolka Gedo boqolkiiba 95 ay deegaan u tahay xaqna ay u leedahay in gudoomiyanimadeeda ay maamusho doorkan. qodobka kale beeshu waxay ugu baaqaysaa beelaha degan degmada Baardheere ee gobolka Gedo in laga fogaado wax walba oo colaad keeni karo. waxa kale oo beeshu ay cadeynaysaa in degmada Baardheere ee gobolka Gedo aysan marti cidna uga noqon doonin isla markaasina ay ka dagaalami doonto dhaqamada ay wadaan maamulka Jubbaland iyo kooxo ku sifooway inay isku koobaan awoodda degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Hajar Buqaadir, RTN TV, Muqdisho.